waxaan rabaa inaan ka hadlo sida loo maareeyo cudurka macaanka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo habka daawooyinka aad u qaadan lahayd inta aan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan iyo talooyin aan ugu talagalay qofka cudurka macaanka leh si uu caafimaad ugu soomo ilaahay idinkii marka cudurka macaanka waxa uu ka mid yahay chronic disease-ka cudurkan ilaa iyo haatan daawo lagu ciribtiro lama helin laakiin waxaa jira daawooyin lagu kontrolo haddii sokorta kacdo ama ay degto sida isugu dheelitiro sokorta jirka marka waxay leedahay daawooyin lagu dheelitiro ayay leedahay marka sokorta ama cudurka macaanka wuxuu leeyahay dhowr nooc ayaa loo qaybiyaa nooca koowaad iyo nooca labaad ama type 1 ama type 2 sidoo kale waxaa jira gestational diabetes mellitus mid loo yaqaano tan waxay ku dhacdaa maamooyinka uurka leh ayaa mararka qaar lagu arkaa marka haddaan ku hormaro nooca koowaad ama type 1 waxay imaadaan marka jirka insulin ku filan oo heli waaye taasina waxaa u sabab ah burbur ku yimaado unugyada laga soo deynayo marka noocan type 1ka waxay ku dhacdaa dadka da-dooda ay yar tahay ama caruurta ayay ku dhacdaa marka waa in ay taxadir muujiyaan dadka leh type 1ka ama dadka qaba nooca type 1ka qabo waa in ay taxadir muujiyaan inta aysan soomin ay dhaktarkooda ay la tashtaan inay soomi karaan iyo in kale type 2 haddaan u gudgalo type 2ga jirka ma helayo insulin ku filan ama insulintu way leedahay unugyadii oo beerka ayaana sida loo baahneen u isticmaalaynin insulinta marka dadkii leh type 2ga way soomi karaan wax dhibaha ma jiro laakiin haddii uusan jirin cuduro kale haddii uusan jirin marka dadka qabo ama uu hayo cudurka macaanka haddii aysan dhaktarkooda la tashanin inay soomi karaan iyo in kale ama haddii levelka ama sokortooda meesha imanaysa aysan la soconin ay maalin kasta cabirin ama ay saxuurta waqtigeeda aanan cunin maxaa yeele saxuurta waxaa loo baahan yahay xilliyada ugu dambeysa in la cuno ama cuntooyinka carbohydrateska iyo fruitiska badan ee qofka cuno hal mar uu qaato waxa uu geli karaa marxalada aad ugu khatara ayuu geli karaa marka waxaa ku imaan karo hypoglycemic ayaa ku imaan karto sokortoodii in ay dhacdo sokorta waxay ka yaraanaysaa marka 70 milligram per deciliter ama sidoo kale waxaa kaloo dhihi kartaa 3.9 millimol per liter marka waxay ku kala duwan yihiin saacadaha ayay kala duwan yihiin saacada qaar 70 milligram per deciliter ay qorayaan kuwa qaarna millimol per liter ayay qorayaan marka wadamada ayaa lagu kala duwan yahay iyo saacadaha marka waa isku mid waa kuba saacadu isticmaalo ayay ku xiran tahay maxaa sababi kara marka sokortaada inay dhacdo intaa ku guda jirtid ramadaanka ama soonka waxaa sababi karo in ay sokortaada ay dhacdo qofka aanan cunin saxuurta cunto ku filan ama saxuurtii yani gebi ahaanba oo saxuurtii oo cunin sidoo kale waxaa sababi karo in aad adigoo sooman activity badan ama hawl badan aad qabatid ayadana way sababi kartaa ama in daawada insulintii xaddi oo aad u badan oo badoos aad isticmaashid way sababi karaan okay sidee ku aqoonsan kartaa marka markaad sooman tahay in sokortaada ay hoos u dhacday waxaa jira calaamado oo lagu yaqaano waxaa ka mid ah marka qofku wuxuu dareemayaa gaajo oo ziyaadaha ayuu dareemayaa sidoo kale qofku wuxuu isku arkayaa wareer ayuu isku arkayaa ama dhidid sidoo kale wuxuu isku arkayaa tabardare ayuu isku arkayaa ama qofka aad ayuu u xanaagayaa sidoo kale waxaa qofka lagu arkaa madax xanuun isku arkaya ama aragiisii oo calow yeesho sometimes qofka waxaa lagu arkaa inuu isku suuxa ayaa lagu arkaa meesha waxaa ugu baxnay hypoglycemic marka waxaan u gelayaa hyperglycemic sokorta marka ay kacdo sokorta waxay gaaraysaa ama ay ka badanaysaa 200 milligram per deciliter ayay ka badanaysaa ama sidoo kale saacada kale haddaan ku sheegnana 11.1 millimol per liter ayay ka badanaysaa totally jirka waxaa laga weynayaa insulin laga weynayaa maxaa yeele insulin jirka si oo insulinka u helo jirka glycogenka jirka ku kaydsanaya ayaa la burburinayaa si uu jirka insulin u helo marka burburintaas ayaa si xad dhaaf leh ayaa loo burburinayaa marka insulin badan oo jirka sidaas ku helaa sidaas ayay sokorta ku kacaysaa marka aynan maxaa sababa marka in ay insulinta ay kacdo waxaa sababa insulinta in ay kacdo qofka stresska sababa stresska way sababtaa sidoo kale waxaa sababa in cuntooyinka carbohydrate oo xaddi badan aad hal mar wada qaadatid sidoo kale daawooyinkan way sababaan daawooyinka steroids way sababaan ayadana marka sidee ku aqoonsan kartaa marka in ay sokortaada kacsan tahay waxaa jira calaamada ayna lagu yaqaano sida qofka haraad fara badan ayuu dareemayaa
ama suuli ama musqusha ku laalaabanaya kaadidiis ayaa badanayso qofka daal iyo madax xanuun oo dareemaya aragiisa xumaado labalabana wuu dareemi karaa mararka qaar sidoo kale qofku waxaa lagu arkaa dehydration yani qofka biyaha jirkiisa ku jira dhan markuu ka dhamaado dehydration ayaa ku dhacaya afka ayuu qaleel ka noqonaya marka maxaa yeelay jirka bini'aadanka shayga kaliya oo keedsan karin waa biyo waa maxaa yeelay biyaha dhidida u bixinaysaa askaari ahaan u bixinaysaa marka qofka saacado badan ayuu soonnay maalinta waqtigaas oo dhan biyo ma cabaynin marka qofka dehydration ayaa ku imaan karo marka saddexdoodii ayaa ku imaan karo sidee ku maareyn kartaa ama ugu hortegi kartaa dhibaatooyinka ka imaan karo ama ku imaan karo qofka macaanka ah leh ama macaanka qabo bisha barakeysan ee ramadaan inta aad ku guda jirto waa in aad doctorkaaga la tashataa habka daawada aad u qaadan lahayd maxaa yeelay isbeddel ayaa ku imaaday cuntooyinkaaga iyo waxa dhan isbeddel ayaa ku imaanaya marka inaad soomi kartid in kala weydiinaysaa iyo habka daawooyinka aad u qaadanaysid sidoo kale waa inaad mar walba la socotaa levelka uu marayo blood sugarkaaga levelka uu marayo waa cabiraysaa marka inaad cabirtid ayaa loo baahan yahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay cuntooyinka aad cunaysid inay ahaadaan cuntooyin isku dheelitiran ama excessna inaad samaysid marka mid ayaan uga hadlayaa marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waqtiyada ugu fiican aad dhiigga cabiri kartid inta aad sooman tahay qofka insulinta qaato ama insulin u baahan waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 4 jeer maalintii inuu iska cabiro waqtigee ugu fiican marka la cabiro 4 sac ilaa 5 sac inta u dhexeedo ama 9 sac ilaa 10 sac inta u dhexeyso sidoo kale 3 sac kadib markaad afurtid ama inta aadan saxuuranin waqtiyadaas ayaa ugu wanaagsan inaad cabirtid cadaadiska dhiigga markaad cabiraysid haddii aad dhiiggaaga uu ka hooseeyo ama uu taagan yahay 70 milligram per deciliter ama 3.9 hadduu taagan yahay waa dhiiggaaga wuu hooseeyo ama wuu dhacsan yahay hypoglycemic ayaa ku jirtaa waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in aad dhaktar aad la xiriirtid ama 200 milligram per deciliter ama 11.1 millimol per liter hadduu ka sareeyo waxaa ku jirtaa xaalad oo hyperglycemic ah sokortaada way kacsan tahay waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in aad dhaktar la xiriirto intaas kadib waxaan u gudgalayaa cuntooyinka ugu wanaagsan aad cuni kartid iyo saacadaha aad cunaysid waa inaad ka fogaataa xaddi badan oo cunto ama hal mar inaad qaadatid waxaa loo baahan yahay cuntada inaad in yar aad u qaadatid sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa carbohydrateska cuntooyinka carbohydrate iyo fatiska ay ka kooban yihiin waa inaad iska yaraysaa iska ilaali inaad saxuuratid waqtiyada hore saxuurta waxaa loo baahan yahay saacadaha ugu dambeeya oo la saxuurto inaad cuntid haddii aad cudurka macaanka aad leedahay waxaa ku bilaabaysaa 3 xabo oo timir ah iyo biyo cad ayaa ku bilaabaysaa ma ahan inaad timirta si xad dhaaf ah u cuntid iska ilaali timirta si xad dhaaf ah u cunin 3 xabo cunaysaa salaada maqrib markaad soo dukatid kadib aad imaadid inta aadan afurin waxaa loo baahan yahay inaad daawada aad qaadatid markaas aad afurtid sidoo kale waa inaad cabtaa ugu yaraan 8 ilaa 10 galaas oo biyaha inaad cabtid ayaa loo baahan yahay biyo aan sokor aan lahayn marka hal mar biyahaas ma ahan inaad hal mar wada cabtid in yar ayaa cabaysaa qofka qabo cudurka macaanka waa in uu iska kontroolaa cuntooyinka oo cunayo waa inuu iska kontroolaa marka cuntooyinka way kala duwan yihiin kuwa waxaa jira markaad cuntid sida degdeg dhiigga ku galayo oo sokorta kicin karo oo loo yaqaano high glycemic index marka cuntooyinka high glycemic indexka waa halis waayo maxaa yeelay markaad cuntid isla markii dhiigga ayay galayaan sokortaada ayay kicinayaan sidoo kale waxaa jira cuntooyin low glycemic index loo yaqaano marka cuntooyinkan aad ayaan idinkugu talinayaa inaad cuntaan maxaa yeelay waa protein ay leeyihiin dhiiggana dhaqsi ma galayaan sokortaada ma kicinayaan marka waxaan ka hormarayaa cuntooyinka high glycemic indexka oo ay dhiigga kicin kara oo degdeg jirka u galaya maxaa kamid waxaa kamid doolshada kamid briiska ala kamid sidoo kale waxaa kamid cabitaanada gisicsan oo sokorta ay ku badan yihiin timirta kamid sidoo kale sabuulka ama daangada kamid marka cuntooyinkaas ma ahan inaad badsatid ama waa inaad iska ilaalisaa waxaa cunaysaa low glycemic index cuntooyinka jirka aan dhaqsi aan galaynin marka maxaa kamid marka cuntooyinkaas waxaa kamid nutska kamid ama looska kamid sidoo kale waxaa kamid meat waxaa kamid eggs kamid ukunta sidoo kale waxaa kamid eggs kamid
caanihiyaa ka mid ah. marka cuntooyinkaasoo loo baahan yahay inaad cuntid. marka exceska aan u imaana, marka exceska waxaa loo baahan yahay qofka marka uu afuro, يعني uu afuro in uu ugu yaraan 2 saac uu socdo ama salaada taraawiix inuu dugto. yani salaada taraawiix waa qayb ka mid ah exceski waaye, ama qayb ka mid ah waa exceski. marka qofku waa inuu dugtaa. sidoo kale iska ilaali inaad si xad dhaaf ah aad excess u samaysid ama hawlo badan aad qabtid ayana ma wanaagsano.